إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إلهي اجعل كتابك لي شفيعا وبلغ. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، maanta barnaamijkeeni ama kelmaddeeni waxay yani ka kooban tahay waa kayfa axfad alqur'aan biduuni nisyaanin. ciwaanka kelimadda waa kayfa axfad alqur'aan biduuni nisyaanin. sidee qur'aanka ku xifdin karaa ayadoo aan la iloobeynin? dabcan dariiqyo badan ayaa jiro oo qur'aanka lagu xifdiyo, laakiin ilowshuhu ama ilowshaha qofka ayay ku xiran tahay. qofka soo yeelo qur'aanka ayay ku xiran tahay. dariiqooyin fara badan ayaa jira asxaabta ka soo aroortay culimmadaba. dariiqada marka ugu wanaagsan ee qur'aanka lagu xifdin karo ayaan insha allahu ku taabtaaban doonaa halkaan ama ka sheegi doonaa insha allah hadduu ilaah yaraado. qofka muslimka ah ee jecel inuu qur'aanka xifdiyo maxaa ku waajib ah? marka hore xifdinta qur'aanka in la xifdiyo diin ahaan ma waajibba mise waa sunno? dabcan xifdinta laba qayb haddii loo kala saaro, alqur'aan bikullihi qofka hadduu xifdinaayo waajib ma aha, waa sunna. laakiin qofku waxaa waajib ku ah xoogaa qur'aanka inuu ka xifdiyo si uu ugu guto salaada oo ka mid ah waajibaadka na saaran. laakiin waa mustaxab qofka inuu qur'aanka dhammaan xifdiyo. fadaa'il badan ayaa ku soo aroortay. maalinta qiyaamaha qofkaasi wuxuu noqonayaa dadka lagu sharfo maalinta qiyaamaha dadka lagu sharfo ayuu noqonayaa. axaadiis fara badan ayaa ku soo aroortay. marka qofku way fiican tahay, qofka muslimku way wanaagsan tahay qur'aanka inuu xifdiyo. xifdinta qur'aanka qofku waxyaabo badan ayay mataqaanaa u sahlaysaa. waxay u sahlaysaa in adduunyada oo horumar fiican ka sameeyo. waxay u sahlaysaa abwaab khayraad badan inay u furanto. marka saas la ajligeeda qofku waxaa u wanaagsan in qur'aankani ilaahi subxana wa taala soo dejiyey, mataqaanaa loo soo dejiyey hudan linnaas wa bayinaatin min alhudaa, in qofkaasi qur'aanka uu ilaahay ku dhowro. qofka qur'aanka xifdiya la mid ma aha qofka kale. qofka waa inuu go-aan qaataa, go-aankaasoo la socota niyad iyo ikhlaas. ayadoo aan niyad iyo ikhlaas jirin lagama yaabo qofka inuu qur'aanka xifdiyo. dariiqada ugu fiican ee ugu wanaagsan ee qofka qur'aanka uu ku xifdin karaa, waxaan hore usoo sheegnay niyo inuu qofka la yimaado. kow. labo, waa in qofkaasi uu leeyahay ama uu yeeshaa kitaab qur'aan u gaar ah. kitaabka qur'aanka ama kitaabada qur'aanka o dhan waa isku wada mid, laakiin waxaa laga maarmaan ah kitaabka uu ka xifdinaayo inay ka gaar noqoto kitaabada kale. xilliyada uu xifdinaayana inuusan isticmaalin kutubo kale. waxay ka caawinaysaa si sahlan inuu qur'aanka ku xifdiyo. saas waxaa loo dhahayaa
kitaabada qur'aanka isku mid ma aha safxooyinku way kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa safxooyinka qaar aayadda aad ku ogeed inay kitaabada qaar yani aayad oo safxooyin uu ka bilaabanayo aad ku ogeed kitaabada kale inuu safxo kale uu ka bilaabanayo kale tusaale ahaan kitaabo waxaa jiro jusaska hadda markaan ka soo qaado oo macruufu dadka ay wada yaqaaniin suuratu almaa'ida latajidanna juska ku jirta suuratu almaa'ida ku jirta aayadda latajidanna kitaabadii anaga qur'aanka aan kusoo baranay aayaddaas ayay ku dhammaanaysay beejka ama safxada aayaddaas ayay ku dhammaanaysay wa idaa samicuuna beejka kale ayuu ka bilaabanayay laakiin waxaan arkay kitaabo qaar oo wa idaa samicuu inta lasoo naqliyey oo latajidanna la hoos keenay latajidanna ayaa la hoos keenay wa idaa samicuu ayuu beejka ku dhammaaday marka qofkii marka hadhow marka aan waxyaabaha aan sheegaya ka mid ah qofku waxaa laga yaabaa in kitaab oo latajidanna ku dhammaatay inuu qur'aanka ka xifdinayo mararka qaar hadduu masaajidka ama meelaha kitaabada laga helo uu tagana in uu mataqaanaa hadduu rabo inuu wax muraajaceeyo kale inuu helo kitaab kale oo mataqaanaa idaa samicuu meesha uu ka filaayey inuu meel kale oo ka arko aayad kale ka bilaabanaysay qofka marka waxaa wanaagsan kitaab haddii kalarkana uu mataqaanaa xitaa uu kitaabka kalarkiisa kalarada ama beejaska safaxaadka hadduu yani yahay kalarkiisa kalar gaduudan ama beejka hadduu cad yahay xitaa way saameynaysaa qofka waxaa u wanaagsan qofka kitaab asiga uu la fahmay inuu mataqaanaa oo fahansan yahay inuu jeefka ku sito hadduu kitaab yar hadduu heli karo qofka waa in mataqaanaa u xadidaa waxyaabaha uu xafidinayo qur'aanka waa 7 juz waa 60 xisib juskii wuxuu ka kooban yahay 20 beej xisibkana wuxuu ka kooban yahay 10 beej waxaa laga yaabaa qofka markuu wax xifdinayo inuu jahawareer ay ka qabsato qaybka sida uu qur'aanku kala dooranayo dadaa waxaa laga yaabaa inay baqar ka soo bilaabaan hadhow markuu cimraan ama meelahaas maraayo inuu ka caajiso dho aayadahan waa dheer tahay bal isku day inaa haddana suuratanaas ka soo bilaabay mar hadday arrintaas dhacdana qofka waxaa ku imaanayso cilal badan aa imaanayso hadhow qur'aankii inuu dib yani haddana cusboonaysiis badan inuu haddana haddana niyaddii oo soo bedelo qorshihii dib inuu u bedelo marka waxaa wanaagsan qorshaha aad yani suuratalmaha ama qorshaha aad samaynaysid waa inay yani si fiican yani kugu degsanaataa aad go-aan ka gaartid yani go-aankay ka mid tahay qodobka afraad qofka waxaa loo baahan yahay ama waxaa laga rabaa inuu yeesho macalin u gaar ah hal macalin oo u gaar ah insha allahu haddaysan tacdiir ama daruuriyaad kale haddaysan imaanin oo macalinka markaasi uu samaystay qofka haddaysan dhib kale iyo dhibaato ama waxyaabo kale oo macalinka meeshaasi ka dhicin waxaa wanaagsan qofka inuu hal macalin uu ku ekaado qodobka marka shanaad qur'aankaaga waa inuu noqdaa qur'aan joogtaysan yani aqrintiisa iyo muraajacadiisa qodobka lixaad waa in aad hubisaa inta aad xifdisay haddaad xifdisay xisib waa inay mataqaanaa ku dheelitirnaataa xisibkaagii waa inay ku sawiran tahay xisibkaasi adigoo aanan ka tilaabsanin aanan si fiican oo sida xifdiga ama xifdiga qur'aanka siduu yahay aadan u xifdinin ma wanaagsano inaad ka dulboodo oo meel kale aad aado marka waxaa wanaagsan inta marka hore oo aad xifdisay hadday macalinkii ama jadwalkaagii uu ahaa xisib inaad xifdisid ama macalinka uu kuu qorsheeyey xisibkaasi waa inaad horta macanii kaana ismaka inaad u xifdiso sida magacaaga oo kale kadib way wanaagsan tahay markaasi inaad sii socoto qur'aanka marka ani waxay ila tahay intee laga soo bilaabo ma kora in laga soo bilaabo fiican ma in hoosa laga soo bilaabo waa isku wada mid labada meel midka laga soo bilaabo laakiin ani waxaa aan la talin lahaa qof walba wax xifdinayo inuu hoos ka soo bilaabo taas ayaa aan wanaagsan sababtoo ah qur'aanka kore iyo hoose adag inta badan jalaadka hoose ee loo yaqaan jalaad markii loo kala bixiyo dadka qaar inay jalaadaha fahmina laga yaabaa jalaadaha hoose ayaa yani aayadahan yar wayna ka adag tahay jalaadaha kore ama suuradaha kore ee suuratul baqara
iyo ayaa ka fudud markii loo fiiriyo suuradaha hoose ee jusaska hoose shanta jus ay ugu hooseyso ay shanta jus xigta ayaa quraanka inta badan ugu adago aayadahan ay yar yihiin marka waxa wanaagsan qofka in waqtiga hore yaani waqtiga uu haayo ama kale oo niyada uu haayo in waxa wanaagsan marka oo qaybtiisa hoose ama qaybta hoose inuu ka soo bilaabo si mataqaana aad ugu dhiirado inta dhiman inuu mataqaana si sahlan oo mataqaana uu ku dhameeyo marka muraajacada in la badiyo qaybta oo mataqaana oo xifdiyani inuu mataqaana aysan noqonin mid oo shalay tii oo xifdiyay in timaanta oo xifdiyay isku qasmato go'aankaasi aan soo sheegnay iyo qodobada aan soo sheegnay runtii ma aha qodobo aan jeebka aan ka keensaday waa qodobo culimada ay diyaarisay waa qodobo mataqaana ka hadleen culimada mataqaana in qodobadaasna ay runtii tixgeliyaan ay raadiyaan ama qodobadaas ay raacaan wax wanaagsan waa mataqaana qofka inuu macallimiinta wax xifdisayno inuu la tashto qofku wax wanaagsan waa insha Allah ta'ala hada wallahu a'lam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين